kartaa cidii inta soo meeyda banaanka soo dhigtay boqolaal kalena jaqda macnaha meydkoodii uga soo tagto soo qaadi weysay waa dareemi karaysaa in meesha dagaalku ka dhacay soona garas magan iyo ceel hareeri inay gacanta ku hayso hadii ragii meydkaas meesha soo dhigan gacanta ku haya ragaasuna de waa ciidankii deegaanka iyo kuwii dawladda iskarsanay horta nimanka sidoodaba waxay ahayd in cid kasta oo xabad ku ridi kartaay hadii ciidanka deegaanka tahay iyo hadii oo dib u xiraynta tahay iyo hadii tahay ciidamada dawladda in cid kasta xabad ku ridi kartaa xabad ku ridaan marka meesha waa lagu weeraray ugu dambeyntiina waa lagu burburiyay waa taas meydkooda la soo bandhigay oo talisay laga qabsaday niman qaarkood lugaha ka xiriireen oo qaar feeraha ka xiriireen xabad ridaan macnaha meesha ugu tagnay xir ka soo furfurnay oo aan soo jiidnay oo meydkooda soo dhignay meesha oo marka waxay u tala galeen inay san baqan yaani in meesha lagu dilay maan in baqan ay ugu tala galeen kramidol oo kuwii sharabooyinka iyo kuwii la qasay intaba meesha u yaaleen way cabayeen waliba waxaan u maleynaa in dagaalka ugu dambeeyo hadda shabaab lagu la dagaalamay Hiiraan inuu yaano maleynaa sababtoo meeshii ugu dambeysay oo xuduudkii Hiiraan markay ka soo baxeen 10 kiiloomitir ama ka sii yarba ama wax la mid ah looga daba tagay ay ku waliba dhahaya waraanka Hiiraan waa diga soo baxnay xawaalo naga hara yaa meydkooda meesha soo dhignay marka waxaan u maleynayaa in markii ugu dambeysay tahay Hiiraan ka dagaalamaan haddii inta fariin oo u diraya haddii inta dhiman oo meelaha ku dhuumaalaysan haddii ka bixi weysana sidoo kale meydkooda soo bilqayna ama ay sixiraano ama ay is xirin waan ka saari doonaa anagoo kaashanayna shacabka